kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin baa meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo aan soo jeediyo anigoo ah Mawlid Maxamed Sabri qodobada warkeenana waxaa ka mid ah kulan lagu cambaareynayay dil magaalada Muqdisho 2 maalmood ka hor loogu geystay wiil dhalinyaro Soomaali ah laguna dhaawacay haweeney u dhalatay dalka Sweden ayaa lagu qabtay dalkaasi Sweden warbixinta warkaasina waxa inoo haya wariyahayaga Cabdirasaaq Socoto Allah u naxariistay Cabdiraxiin Muxyidiin Xaaji Xasan ayaa dablay hubaysanay ay ku dileen magaalada Muqdisho sidoo kalena ay ku dhaawaceen haweeney u dhalatay dalka Sweden waxa labadooduba ay ka tirsanaayeen xisbiga mucaaradka ah ee Finnister Party loo yaqaano ee siyaasiga ah ee dalka Sweden Cabdiraxiin ayaa waxbarashadiisii hoose dhexe dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed ku dhigtay dalkan Sweden waxaana uu dhiganayay kulliyadda siyaasadda ah ee jaamacad ku taala dalkan Sweden Cabdiraxiin waxa uu ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee Finnister Party oo xubin ka ahaa sidoo kale waxa uu u tagay dalka Soomaaliya si uu kaga qayb qaato horumarka cusub ee la doonayo in Soomaaliya lagaga samata bixiyo dhibaatada waxaana halkaas uu ka furay xafiis lagu mataaneynayo xafiiska xisbigiisu uu ku leeyahay dalkan Sweden haweeneyda u dhalatay dalka Sweden ayaa la sheegay inay booqanaysay xafiiskaasi iyo sidoo kale kulamo gaar la yeelatay dhalinyaradii mid ka noqotay howlaha uu ka wado Cabdiraxiin dalka Soomaaliya shir jaraa'id oo si wada jir ah u qabteen xisbiga mucaaradka ee Finnister Party oo xubinta uu ka ahaa u naxariistay Cabdiraxiin Muxyidiin Xaaji Xasan oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo haweeneydaasi la dhaawacay ee u dhalatay dalka Sweden oo labadooduba ay xubin ka ahaayeen ayaa waxa ay xisbigu sheegeen in ay u tahay maalin mugdi ah dhimashada Cabdiraxiin iyo haweeneydaasi dhaawaca loo geystay sidoo kale waxay sheegeen inay eegi doonaan ay baari doonaan sababta keentay weerarkaasi lagu qaaday labada siyaasi kadib markii uu dhamaaday shirka jaraa'id ay sida wada jirka u qabteen xisbiga mucaaradka ee Finnister Party iyo qoyska uu ka baxay waxaan la kulmay Cabdiraxiin walaalkii Ilyas Muxyidiin Xaaji Xasan walaalkii wuxuu ahaa wiil oo jaamacadda caasimadda Sweden wax ka baranayay wuxuuna baranayay cilmiga siyaasadda wuxuuna ka tirsanayay xisbiga bidix oo Vänster Partiet la yiraahdo wadanka markii maxay asaga iyo waxa la socday haweeney maxay ka wada shaqeynayeen gabadha la socotay waxay xisbigiisa ka tirsaneed waxay madaxna ugu ahayd waxay madax ka ahayd xisbigiisa ee magaaladan caasimadda Stockholm dawladda Sweden iyo xisbiga sidee u arkeen dhibaatada iyo dilka Cabdiraxiin loo geystay iyo xisbiga sidee u arkeen waa wax laga yaabo xisbigiisa madaxda ugu sareeyo madax badan ah xaafadeen maanta maadeen wayna aad iyo aad ugu xun yihiin waxa walaalkii loo geystay Allah u naxariisto walaalkii sidoo kale waxaan wareysi la yeeshay Allah u naxariistay marxuumka hooyadii wiilkayga Cabdiraxiin Muxyidiin Maxamed Xaaji Xasan Maxamuud Cadde oo u tagay Soomaaliya inuu macnaha dadka oo dhalinyarada oo wacyigeli oo ku sameeyo inuu wax u qabto wadankiisa oo aad u jeclaa wiilkayga marka sidaas oo Soomaaliya u tagay geeridiisa naxdinta lahayd ayaa la ii soo sheegay shalay 21 bisha 8 2013 oo aad aan uga qaracmay gacan ka xaq daran ayaa dishay asagoo waxba galabsan oo wadankiisa inuu wax u qabto uu jeclaa waxa la sheegay inay haweeney u dhalatay dalkan Sweden ay la socotay oo asaga ay la shaqeynaysay maxay ahaayeen waxa ay ka wada shaqeynayeen Cabdiraxiin iyo haweeneydaas Sweden oo iyana ku dhaawacantay shilkii ama dilkii loo geystay Cabdiraxiin iyo wiilkii la socday haweeneydaas waxay ahayd haweeney ka tirsan siyaasadda waddankaanita oo Vänster Partiet la dhahayo ayay ka wada tirsanaayeen ayada waxay ahayd qofta qaybada ugu weyn asagana wuxuu ahaa macnaha dhalinyarada qofka gudoomiyaha u ah
dhalinyarada Stockholm gudoomiyahooda ayuu ahaa sidaas ayay Soomaaliya ay ku tageen oo jaamacadii Soomaaliya ay ku soo booqdeen booqashada kadib waa markii ay soo baxeen markii oo shilkan dhibaatada dhacday oo lagu dilay waxaan dawladda aan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dilkooda ayuu aad u batay mar iyo laba iyo saddex ma aha hadda maanta wiilkeyga lagu dilay marar badan waa maqalnay in dad ummadda u shaqeynaya in ay dilaan aana la soo qabanaynin waa baaritaan ayaan ku sameynaynaa ayay mar walba yiraahdeen dawladda ugu weyn Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka dhammaan waxa idinka codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan inaad dadkaasi taxaqoodaas u soo celisaan qofkii dilayna gacanta ku soo dhigtaan haddii kale waxa way dadka dhalinyarada Yurubtan ku koray ma hiigsanayaan mana aadi doonaan Soomaaliya inay ku laabtaan waxa kaliya oo ilmaha niyadooda dhisay waxa qofka markuu qof dilo waa inaa qofka maxkamad la keenaa oo la cadaalad loo sameeyaa wixii wax dilayna markaas ay cadaalad lagu qaadaa ma aha inay duurkooda iska galaan mana u maleynay haddii ay taas dhacdo ina dhalinyaro badan oo rabtay inay Soomaaliya aado inaysan aadi doonin mustaqbalka waana mustaqbalka dhalinyarada waxa kaliya indhaha wadanka u dhisa oo u furnaayo oo ubaxa kaliya waa Soomaaliya waa dhalinyarada hadda soo kacayso ayaga ayaa jiilkan dambe inay bedelaan aan rajaynaynaa insha Allah marka dawladda waxaan si buuxda aan idinkaga codsanayaa in aad sida ugu dhaqsaha badan aad dadkaas aad ku soo qabataan xaqoodina aad dadkan la dilay xaqooda aasisaan wixii wax dilayna aad cadaalad la horkeenaa halkan oo xaafad lagu magacaabo Husbi oo xaafada uu ku noolaa Allah u naxariistay marxuun Cabdiraxiin Muxyidiin Xaaji Xasan oo lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee siyaasiga ee dalkan Sweden ayaa waxa ay tahay xaafada lagu qabtay shirka jaraa'id sida wada jirka u qabteen xisbiga oo ka tirsanaa iyo reerka uu ka baxay Allah u naxariistay marxuun Cabdiraxiin Muxyidiin Xaaji Xasan xisbiga ayaa sheegay inay tahay maalin mugdi ah dhimashada Cabdiraxiin iyo dhaawaca haweeneyda Swedish ee u dhalatay dalkan Sweden la gaarsiiyay waxaana sheegay inay rabaan inay ogaadaan xaqiiqda dhabta ah sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ayaa soo u saartay guddi soo baara xaqiiqda dhabta ee ku aadan dilkan iyo weerarka loo geystay haweeneyda Sweden u dhalatay dalkan Sweden waxaana la sheegay inay su'aal kaga imaan doonto qaybta u qaabilsan dawladda federaalka ee Soomaaliya xagga amniga iyo ciidamada sirdoonka sida ay hadalka u dhigaan waxaa lagu wadaa maalmaha soo socda in la dhigo tacsi weyn oo lagu dhigi doono meel weyn oo ku taala xaafadan oo ay ka soo qayb gali doonaan xisbiyada ka taliya dalkan Sweden ee siyaasiga oo dhan Cabdirasaaq Socoto warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimadda dalka Sweden Stockholm